السلام عليكم. sanadkii dhammaaday 2018 waxa waa sanad ay dhacdooyin badan soo mareen caalamka. halkan waxaan ku soo koobayaa dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee soo maray 2018 caalamka. Mareykanka oo ka baxay heshiiska nukliyeerka Iran 8 bishii May 2018 ayuu Trump ku dhawaaqay in gebi ahaanba ka baxeen heshiis ay dowladaha awoodda leh la galeen dalka Iran kaas oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran. The Iran deal is defective at its core. The United States will withdraw from the Iran nuclear deal. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo markii afraad ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Ruushka isagoo helay 57% codadka taageerayaasha. madaxweyne Putin isagoo khudbadda guushiisa ka jeedinayay Moscow waxa uu sheegay in tani caddeyn u tahay kalsooni lagu siiyay waxqabadkiisa. dilkii wariye Jamaal Khashoggi. Jamaal waa saxafi u dhashay dalka Sacuudiga kaas oo lagu dhex dilay dhismaha qunsuliyadda maamulka Aal Sacuud uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. baaritaano xooggan oo uu Turkigu bilaabay waxa lagu helay cadeymo muujinaya qaabkii loola dhaqmay Jamaal. markii uu Jamaal soo galay qunsuliyadda waxaa goobta soo gaaray saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka boqortooyada Sacuudiga waxaana halkaasi arxan darro ah lagu khaarijiyay Jamaal Khashoggi. dilka wariye Jamaal waxaa lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay dhaxal sugay Maxamed bin Salmaan. Itoobiya oo dooratay hogaamiye cusub. 2 bishii Abriil ayuu baarlamaanka Itoobiya u doortay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromiya kadib markii uu casilay ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Haile Mariam Desalegn. dhulgariirka Indonesia. dalka Indonesia khaasatan jasiiradda Lombok waxaa ku dhuftay dhulgariiro ay ku dhinteen ugu yaraan 91 qof iyo 200 oo dhaawac waxaanay sababtay inay 10,000 oo qof ka barakacaan jasiiradda Lombok. heshiiskii Eritrea iyo Ethiopia 13 Sebtembar ee sanadkii 2018 labada wadan ee Ethiopia iyo Eritrea iyo heshiis taariikhi ah ku kala saxeexday magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia. munaasabadda heshiiska waxaa goobjoog ka ahaa boqor Salmaan bin Cabdilcasiis iyo dhaxal sugay Maxamed bin Salmaan. xulka kubadda cagta Faransiiska ayaa ku guuleystay koobka adduunka ee sanadkii 2018 lagu qabtay dalka Russia. munaasabadda guusha Faransiiska waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo waliba madaxweynaha dalka France Emmanuel Macron. dagaalkii Khabib iyo Conor McGregor 6 Oktoobar ee sanadkii 2018 waxaa dhacay dagaal caalamka oo dhan indhaha lagu wadahayay. dagaalkan ayaa u dhaxeeyay Khabib oo ah feeryahan muslima kana soo jeeda dalka Russia iyo Conor McGregor oo si xun u aflagaadiyay diinta Islaamka. kadib markuu Khabib ka guuleystay McGregor waxaa qasrigiisa ku casumay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. dhinaca Soomaalida waxaa soo maray dhacdooyin kala duwan sanadkii dhammaaday 2018 waxaana ugu muhiimsanaa madaxweynihii hore dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xabsiga loo taxaabay. baarlamaanka Soomaaliya oo soo saaray mooshin xilka lagaga qaadayo madaxweyne Farmaajo. dhacdooyinka saameynta murugada leh ee dhulka Soomaalida waxaa ka mid ahaa duufaantii Sagar ee bishii May 2018 ku dhufatay xeebaha waqooyi galbeed ee Somaliland.